kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtay guraba wararkeena maanta waa talaado waana 22 bisha July 2020 daawadayaal wararkeena maanta kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay weerar ka dhacay gobolka Galgaduud ee tirada dhimashada sii kordhaya gudoomiye Cumar Finish oo war cajiib ah ka soo saaray qasaarihii ka dhashay dhismo ku soo dumay degmada Xamarweyne qoraalka Billa Soomaaliya ka soo baxay oo muujinaya in Axmed Madoobe wali uu ku adkeysanayo dagaalka kula jiro dawladda Soomaaliya shirka madaxda dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada oo mar kale dib u dhacay wararkii ugu dambeeyay kulamada gooni-gooniga ay ka soconayaan Dhuusamareeb madaxweyne Muuse Biixi oo qorshe cusub ku wajahaya xiisada ka dhaxaloosan maamulkiisa dawladda Turkiga oo sheegay ciidamada Soomaaliya ay ku biirinayso dagaalka ka soconaya wadanka Liibiya iyo wararkii ugu dambeeyay ee degmada Afgoye Shabeellaha oo soo daadad halkaas ay ku soo rogmadeen ayaan eegi doonaa qodobadaas iyo kuba kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena maanta kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gambareedkana taabo si ay kugu soo dhacaan wararka waliba macluumaadada gaarka halkan aan ku baahino aan ku hormaray gobolka Galgaduud weerar ayaa ka dhacay halkaas qasaaro dhimasho dhaawacyana la soo warinaya warar kala duwan ayaa ka soo baxay weerar qasaaro geeso saacadii la soo dhaafay ee ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Galgaduud ee dhanka maamul goboleedkaasi Galmudug ee Soomaaliya weerarkan oo mid qorsheysan ayaa waxa uu ka dhacay tuulo la yiraahdo Orsho oo ku taala inta u dhaxaysa deegaanka Gudinle iyo Xinaare deegaan la yiraahdo gobolka Galgaduud ka tirsan wararku waxay sheegeen dad isku qoys ah in halkaas ay ku dhintay tuulada oo mar qoraar rasaas lagu furay koox hubeysan maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan in qoys dhan oo deegaan ah halkaas ku sugnaa rasaas ay la dhaceen inta la xaqiijiyay ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay saddeed kalena way ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan caruur iyo haween dadka waxyeelada ay soo gaartay sidoo kale wararku waxay inta ay ku dareen dhacdadaas ay salka ku hayso dilal iyo aanooyin qabiil oo dhowrkii cishay ugu dambeeyay ka tagnaa gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya wali ma jirto hadal ka soo baxay mas'uuliyiinta maamulka Galmudug iyo saraakiisha dawladda ee gobolka Galgaduud ku sugan maleeshiyaadka weerar qoysas danyar ah oo ku noolaa tuulo la yiraahdo Godin oo u dhow gobolka waa ka tirsan gobolka Galgaduud inta badan waxa Galgaduud iyo Mudugba ka dhaca weeraro qasaaro dhimasho dhaawac geesta waxaana sabab kooxo hubeysan maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan kuwaas oo weerar ka fuliyay magaalada waxaas weerarada qaarkood la sheegay inay u badan yihiin kuwa aanooyin qabiil gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Soomaaliya Muqdisho ayaa ka hadlay qasaaraha ka dhashay dhismo ku soo dumay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir warar dheeraad ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dhismo qadiimi ah oo ku soo dumay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir dhismahan oo ka koobnaa 3 biyaano ayaa waxa uu ku soo dumay qoysas danyar ah oo deganaa waxaana la sheegay in dhismaha uu ahaa mid waqti dheer dhismihiisa qaatay oo duqoobay shaqaalaha gurmadka degdega gobolka Banaadir shacab fara badan ayaa ka qayb qaatay gurmadka loo sameeyay dadka ku jira dhismahaasi soo dumay ugu yaraan waxa la soo badbaadiyay ilaa 17 ruux oo haween iyo caruur u badnaa oo dhismaha guriga deganaa kuwaas oo ku soo dumay gudoomiyaha gobolka ahna duqa caasimada oo tigay goobta ayaa warbixiyay qasaaraha burburka dhimasho wuxuuna sheegay 5 kamid ah dadkii laga soo badbaadiyay ay ahayn kuwa dhaawacyo fudud qaba halka 12 kalena ay qabeen dhaawacyo culus kuwaas oo la dhigay isbitaalada lana hubinayo caafimaadkooda sidoo kale gudoomiyaha waxa uu sheegay sababta dhismahan ay soo dumay keentay roobabkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dhismahan oo ah dhismo waqti hore la dhisay waqtigiisana qaatay roobabkii ugu dambeeyay ee ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa sababay in guryo badan oo qadiimi ah ay soo dumaan shacabka ku nool gobolka Banaadir ayaana hadda wajahaya xaalado aad u xun marka loo eego daadadka roobabkii ugu dambeeyay ka dhashay kuwaas oo qaarkoodna dadka barakacyaasha saameyn weyn ku yeeshay gudoomiye Cumar Finish waxa uu sheegay in dhismayaasha waqtiga dheer ay ku yaala caasimada hadda kadib amar lagu bixin doono sidii dib dayactir loo sameyn lahaa lagana baaqsan lahaa qasaaro noocan oo kala oo soo baxa ugu dambeyn waxa ugu baaqay shacabka Muqdisho inay muujiyaan feejignaan dheeri ah kana fogaadaan meelaha dheer ee halista ka iman karta maadaama roobka ka soconaya caasimadu iyo mid isdaba joog ah dhowrkii cishay ugu dambeeyay wadooyinka ugu waaweyn ee caasimada ayaa biyo xireen kuwana dadka qaarkood iyo xaafadaha ugu galeen kuwaas oo walaac badan ka muujinaya saameynta biyaha roobka warkii ugu dambeeyay ee shirka Dhuusamareeb ayaan daawadayaal si guud u dirisaagi doonaa maanta waxa lagu waday in shirka si rasmi ah kaga furmo haseeshee ma uusan furmin dib u dhacayana ku yimid jadwalka furitaanka warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababaha dib u dhac u keenay si guud ayaan u eegi doonaa shirkaasi iyo kulmadii gooni-gooniga ahaa ee Dhuusamareeb ka dhacay
wararkan ka helina magaalada Dhuusamareeb caasimada Galmudug ayaa sheegaya in dib u dhac uu ku yimid shirkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowladda goboleedyada la filayay in maanta uu ka qabsamo magaalada sida uu ogaaday generalkana weli waxaa socda kulamo gaar ah u dhaxeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada si xal looga helo isfaham weyn laga gaaro waxyaabaha u dhaxeeya dowladda iyo maamul goboleedyada sidoo kale xalay Dhuusamareeb waxaa ka qabsamay shirar u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo shanta madaxweyne ee maamul goboleed kuwaas oo lagu ballamay ama lagu gorfeynayay sidii arrintan iyo waliba wada tashi weyn looga qaadan lahaa shirka maanta qorshaha inuu furmo qodobada aadka loo hayay waxa kamid ah nooca doorasho la qorsheynayo in dalkan uu ka qabsamo iyadoo madaxtooyada Soomaaliya ay aad u dareynayso doorasho qof iyo cod halka sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ay aad u dareynayaan doorasho dadban gaar ahaan madaxweynaha ayaa la sheegay in aad ugu dhagaya qodobka in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod halka madaxweynayaasha maamul goboleedyaduna ay ku adkeysanayaan doorasho dadban arrintan ayaa cakirisay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo maalmo badan ay hor fadhiyeen hogaamiyaasha dowlad goboleedyada kuwa dowladda dhexe balse ma jirto ilaa hadda wax natiijo ah oo cad oo ka soo baxay saluug mooye kulamadii dhacay si kastaba ha ahaatee ma cadda xilliga sida rasmiga u furmi doono shirka dowladda dhexe ee dowlad goboleedyada kaasoo looga hadli doono arrimaha ugu weyn ee ah doorashada Soomaaliya dhinaca kalena daawadayaal qoraal ka soo baxayna madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu muujiyay in wali Axmed Madoobe uu ku adkeysanayo duulaanka uu ku yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sida muuqataba mid guul ah ka gaari waayay kulamadii dowladda Soomaaliya iyo waliba dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isaga ku dhaxmaray labada cisho ee ugu dambeeyay magaalada Dhuusamareeb sida lagu muujiyo qoraal ka soo baxay madaxtooyada xiisadan ka dhalatay doorashada Axmed Madoobe ayaa waxa si rasmi ah u soo afjaray villa Soomaaliya ayadoo ay sheegteen bishii Agoosto dhexdeeda doorashada Axmed Madoobe aysan aqoonsan dowladda inkastoo qoraal mar dambe ka soo baxay madaxtooyada lagu sheegay in qaab ku meel gaar ah loo aqoonsaday villa Soomaaliya qoraal ay ka soo saartay Axmed Madoobe waxay ku sheegteen madaxweynaha Jubbaland taas uu go'aankaas hore laga gaaray una aqbalay in door ku meel gaar uu noqdo sida lagu xusay qoraalkii ka soo baxay madaxtooyada oo dhaxmaray madaxweyne Farmaajo iyo waliba madaxweynaha Jubbaland isbedelka villa Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa waxa uu imaanaya kadib markii kulamo albaabada u xiran madaxweyne Farmaajo oo si falkafoola u hor fadhisay hogaamiyaha Jubbaland inkastoo qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ee lagu daabacay barta gaarka ee Facebook lagu sheegay in madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu aqbalay in dalka uu aqbalay in doorashadiisa dhacday ay noqotay mid lagu qanci waa sidaas darteedna 2 sano ku meel gaar ah uu aqbalay dowladda federaalka ayaa hore sheegtay in lagu fashilmay doorashadii ka dhacday halkaasi cadaadis badan ay ku saartay Axmed Madoobe taasoo lagu guuleysay waa inkastoo markii dambe 2 sano dheeraad ah oo ku meel gaar ah la siiyay sida uu ogaaday generalkana isbedelkan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aad ugu qanciyay Axmed Madoobe in wax badan uu ka bedelo qorshayaasha aqbalada 2 sano ee ku meel gaarka villa Soomaaliya ayaa u muuqata mid qaadatay gooldaradii dagaalkii ay la gashay Axmed Madoobe sidaas darteed Axmed Madoobe ayaa asna lagu qanciyay in uu qayb uu ka noqdo dadka taageersan doorasho qof coda si waqti dheeraad loo siiyo ama inuu ku adkeysto doorasho dadban si asna 2 sano ku meel gaarka ay u dhameyso sida ila xoggaal ay xogtana la wadaageen hase yeeshee wararka qaaran helnaya sheegaya in wali labada hogaamiye ay kulamo isugu dhimay Dhuusamareeb mar kale si kafalkafoola ay isku wada arki doonaan inuu ku wada ballameen waxaana suurtagal ah kulanka ugu dambeeyay inuu soo baxo heshiis rasmi ah oo dhaxmaray dowladda Soomaaliya Axmed Madoobe waxyaabaha ugu waaweyn Axmed Madoobe hadda horyaal ayaa waxa qayb ka inuu kala doorto inuu taageero qorshaha madaxtooyada ah doorasho qof coda si asna loo siiyo 4 sano ee doorashada ah ama inuu ku adkeysto doorasho dadban si asna u dhameystirto 2 sano ee ku meel gaarka ee dowladdu ay siisay waa ka qaybaha dambe wararkeena soo gaarnay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa wajahaya xiisad culus oo ka tagan deegaanada Soomaaliland asagoo markan ciyaaraya falsafad cusub oo ku xalinaya xiisadda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa qorshe cusub ku wajahaya xiisadda saami qaybsiga ay ka tagan gudaha Soomaaliland kadib markii uu fashilmay dadaalo lagu qancinayay madaxda dhaqanka ee ku saabsan saami qaybsiga madaxweynaha iyo waliba xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ku heshiiyay in xilliga doorashada Soomaaliland lagu qabto saami qaybsiga hore 2005 xilligaas oo taa bedelkeedana hadda beelaha qaarkood deegaanada Soomaaliland ay walaac badan ka keeneen sida uu ogaaday generalkina madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi ayaa ku howlan qorshe cusub oo ku wajahaya xiisadda saami qaybsiga iyo guuxa badan ee dhalisay Soomaaliland isla markaana markan uu ku qasban yahay qancinta beelaha qaarkood ee aad u sulugsan saami qaybsiga golaha guurtida iyo golaha wakiilada ee Soomaaliland Muuse Bixi ayaa lagu wadaa in maanta dalab culus oo hordhigo maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland taas oo
uu dan kaga leeyahay in go-aankii xisbiyada ee ahayd Somaliland ay ka dhacdo doorasho saamigana qayb laga siiyo dhammaanba xisbiyada mucaaradka in arrintaas wax ka bedel lagu sameeyo si loo qanciyo beelaha aad u saliigsan Muuse Biixi ayaana arrintaas ka dhaadhicinaya maxkamadda sare ee dalka waa maamulka Somaliland Biixi ayaa qorshahani ka doorbiday kadib markii natiijo la'aan ay kusoo ilaatay kulamo waqti badan qaatay oo la yeeshay hoggaanka dhaqanka ee Somaliland kuwaasoo ku qancinaya in ay ku qancaan waxyaabaha isla meel dhigeen xisbiyada mucaaradka saami qaybsiga iyo tirkoob la'aanta cusub ee lagu wajahayo saamiga golaha guurtida iyo waliba kuwa kale ee Somaliland inkastoo aan si dhaba loo sheegin jawaabta maxkamadda ay ka bixin karto dalabkan Muuse Biixi hordhigi doono waxaa suurtagal ah in maxkamadda qayb ahaan arrintan ay taageerto maadaama xisbiyada iyo saamileyda kale ay buuq badan ka keeneen Somaliland ayaa maalmihii dambe waxa laga dareemay xiisad ka taagan arrinta saami qaybsiga oo beelo ka tirsan ay aad u qaadaceen ka qaybgalka doorashada ugu dambeyn daawadayaasha Turkiga ayaa ciidamada Soomaaliya ku biirinaya dagaalka Liibiya war-saxaafadeedka dalalka Carabta oo saacadihii la soo dhaafay ay tabiyeen Turkiga ayaa ciidamo militari oo Soomaaliya u daabulaya dalkaasi Liibiya kuwaas lagu taageerayo dowladda caalamka oo aqoonsiga Liibiya saxaafadda dalalka Imaaraadka Masar iyo kuwa Liibiya ayaa taageeray Khalifa Haftar iyagoo sheegay in ciidanka Soomaalida ay militariga lagu biirinayaan ay ka digayaan ayagoo digniin u jeediyay dowladda Soomaaliya ku saabsan in aan la geenin ciidamo militari oo Soomaaliya qaybna ka naqdaan dagaalka lagu wajahayo magaalada Sirta iyo Jafra magaalada la yiraahdo oo gacanta ku haya Khalifa Haftar inkastoo aysan saxaafaddu bixin waa inkastoo xog badan aan laga bixin qorshahan iyo goorta soo bilowday laakiin dowladda Turkiga ayaa la sheegay ciidamo badan oo Soomaaliya ay tababartay ay doonayso inay ku daabusho wadanka Liibiya wasaaradda difaaca wadanka Turkiga ayaa laga soo xigtay in ay ciidamo badan oo Soomaaliya oo dalkeeda ku sugan tababar loo siinayo dowladda Soomaaliya markan ay qorsheynayso kun ka mid ah askartaasi loo daabulo wadankaasi Liibiya dagaalka Liibiya ayaa si weyn waxa ugu xoogeysay xukuumadda Ankara waxayna ballan qaaday in Khalifa Haftar ay baabi'in doonto magaalada shidaalka qaniga ku ah ee la yiraahdo Jafra iyo Sirta uu ka qabsan doonaan dhinaca kale baarlamaanka wadanka Masar ayaa ansixiyay in ciidamo militari ah oo dalkaas ah in lagu daabulo wadanka Liibiya ayna taageeraan Khalifa Haftar arrintan oo sii xoojinaysa dagaalka xooggan ee Liibiya ka jira Liibiya waxa ku tartamaya wadamo waaweyn Masar Liibiya Imaaraadka Carabta Turkiga iyo waliba wadamo kale oo Ruushka qayb uu ka yahay si kastaba arrintan oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay leedahay lagu geenayo wadanka Liibiya ayaa ka dhigi karta mid xiisadan si weyn u saameysa Soomaaliya wararkiina ugu waaweynana daawadayaal maanta waan eegayntaasi nabadgelyo